السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان dadka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan gaar ahaan reer Wallahi Fayda Salaamay waa Sayid Maxamed qofkii la hadlayo waxaan ku suganahay Masar Qaahira maanta waxaan ka qayb galay shir aad muhiim u ahaa oo looga hadlayay laguna soo bandhigay guryaha iyo dhismayaasha laga dhisay wadankan waxyaabo runtii aad loo soo jiito ugu muhiimsan waxay ahayd magaalo dhan baa la dhisayaa oo la yiraahdo Wasaarada Caasima waa magaalo cusub oo masaaxadeedu aad u weyn tahay oo waxaan dhihi karaa magaalada ay Muqdisho 5 jeer 10 jeer ka weyn waxaana la dhisayaa dhismayaasha dawladda meelo dadka degaan ganacsiyo jidadka wax walba la sameeyaa magaaladii hore waa laga guuray marka horumarka intaas la baa adduunka ka socda waxaan markaa maanta ku soo qayb galnay inaan fiirno qaabka u dhisayaan mustaqbalkana waddankeena dabcan laga sameyn karo barnaamijkan anagu waxaan ka soconay deal shakerka marka waxaan jecelnahay waxyaabaha fursad oo dadka inaynu isla fiirino iyo wax dawladda iyo dalka dadka halka jooga badan marka waxaas isku keen wax badan oo soo bixi karaan marka insha Allah shaqada waxay ka socotaa Masar Qaahira deal shakerka gaar ahaan oo mas'uul ah kana halkan iyo Soomaaliya waxaan sameyn doonaa isku xir wixii cusub oo ay soo gudbin doonaa marka intaasaan ku soo gabagabeynayaa sarifkina waa soo dhow yahay aynu isla socono insha Allah wa anigoo sayid markale salaamaya maca salaama bye bye